gurigaaga ka baxaysa waxa tiri bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wa du'a yaro gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatul amal arabka ka soo baxaysa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tiri bismillah baan ku baxaya tawakkaltu ala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay la hawla wala quwwata illa billah xeelad an maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin taacada ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macasiyadan ilaahay bay iga weecinaya taacadan ilaahay bay dhib yareynaya ducada baad akhrisatay ducadaas malag baa oranaya hudiita waad hanuuntay wa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad ka yaalayna waa lagu qabto cid kale ku qabatay wa waqiita balaaya iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayna waa laga ilaaliyay wa tanaha anhu shaytaanna uu ka leexda meel ku soo maray ma jirtay shaqo tag baa laga yiraahdaa wa ducada yara gaaba bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ducadaas la doonaya dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaam an-nawawi rahimahullah kitab al-adkar waxa uu ku qoro ku jamciyay min dalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ila eelka la dhigay ducadii lagu akhrinay buu soo qoray adkar an-nawawi markii kitabka sheekhu uu sanifay ee maktabada la dhigayna reer dimashq way isku sheegeen kitabka baa soo baxay kitab al-adkar baa soo baxay waa kitab ka waramaya maxay min dalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinayo ilmaha yar ila qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitabka ku soo qoray sheekhu markii reer dimashq ay isgaadhsiiyeen inay kitabka abu sheekhu sanifay kii yiraahdo kitabka lacagan ku iibsado ku gato ma haysta kii yiraahdo waxa lagu oran jiray bi'daara washtari al-adkar war daarta iibiyo kitab al-adkar iibso daarta iibi nago daarta maxaan u iibinaa dhoof qaxooti aqalkiibu iibiyay maqlo dalkiisiibu iibiyay ila ayna halku socda ila bilad al-kufr buu socda dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu intuu daartiisa iibiyo hijroonaya ciyaalkiisa islaantiin afka ku qaadan afka oo la baxsanaya maxaad u wadaa xageed u wadaa wadannadaas aan geenaynaa buu yiri mid baa yiri xageedii ciyaalka wadannadaas aan u dhoofinayna buu yiri oo dalkeenana Afrika nabadgelyada la isku mahalayn karo buu yiri والقابل نبض طالع نبض ربع ضمان ولا قاعدين دباتة كده عايز مياه وضمان يا كم ده عايز أفريقيا بقول لما قرنا يوصل 2 سنة سعوتال بس بدي لي كرتا تعليم ملء دختر ملء شغل مجرته نولل مجرته نبتقلي مجرته ها دول كاس نبض طالع دول كائنه أبد سوق هذا دارته ويبينيا مسلمين تدتك واجي إيمانك عملك الصالحة يدعوينك النبي أي يقين سنعينا وحي أورنجرين دارت إيبي كتاب الأذكار نيبسو دارت إيبي دعاء يا رجابنك يا قريق بركات كبح إلهي وقول همي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء نكيل هذا أبو النبي يقول لي يحيى أفر تاسع الله بشارين يا وادها نونتي وطريقي مستقيم كايات كل عضي وكفيتا مراد وحي الدوية أتكلها هينا والله قو قبتو عد ما كو ضبو شيء ووقيتا شرعية بلاية مصيبة وحي الدوية جرينا والله قال لي حيي شايدانا مالو كو صومر مجرة الصعبة لليها قفقاس والدعاء داس دعاء دانا عرف يكسو بحيسا مكينة العمل من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أي إيضا ما نقاضي أبو النبي قولي عرب قيسا يا عورديسا إنه معصيه ذنبك إلال وجنة وقب اللنقاضا من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله نبي محمد أصحابته قدح الله وحويري أي إيضا اللنقاضي وإي كفالة قاضي إنه بني عادك وحبا ويديسا وأنا يقول جنة وقب اللنقاضا ثوبان بايد أنا أقول بالله قادي بودي
إن بني آدم قعنتي ده هوس لقن إن بني آدم كي يقباحي وشيقن إن بني آدم سيدا أنت لسارا أنا أقول بالله قاضي أبو كيري شرط بالله قال يا شرط حديث كورة محوها أي أيضا ما نقاضي عرب كيسي عورديسا إنه معصية يدن بك إلالين وأنا نكون جنة وبالله قاضي لماذا حداد حفظه جنة لغو بالله قاضي من تكفل لي أي كفال قاضي بنبي قول إياهي إنه بني آدم كعنته وصدقا وصدا أورن وأنا نكون جنة وبالله قاضي ثوبان بعد أنيقا ثوبان صحابي قاس مركو دادي سويناتي سوق مقالة المدينة isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubama laga yaabo jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaco raqabadiisa inuu dagtiisa kaga dhaco ma oran jirin isoosi bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaas lagu oran jiray yaa thawban saaxibu rasuulillaahi baa tahay nin daaweyn baa tahay jeedalka agteeda ku dhacay ma natirayda annaka noo dhiib markaas uu oran jiray nabi maxamed ballan la galay ballankii nabi aan la galay baan buuxinayaa buu oran jiray la tas'alanna bunayya aadama haajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya aadamu hina yus'alu yaghdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin ka baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadamka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bugtaan badan baa la isku nacaa taasay leeyihiin bini aadam haddaad tirahdid keen uu ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxa la inoo siiyay inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino Malik bin Dinar rahimahullah habeenada kamid ku manaamay manaan baa lagu yiri kac masaajidka ku yaala xaafada waa Madiinatu Basra in yaro shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya saddex maalmood yarkaas cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u geeba lagu yiri manaam وكعي cuntadii buu soo diyaariyay miskiidkii uu yimid wuxuu soo galay in yaro shaab oo ducaysanay shabaabkeena iyo shabaabkaas ku ag cuntadii buu u dhigay oo la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yiri aqalkaygu waxa ku yaala xaafada ka dambayso ku yaala wadada saa u soo marsada u soo mar ali markaad baahateed cunto u baahatay ii kale buu ka yiri hadalka markuu yarkii yaraa maqlay wajigiisii buu bedelay wuxuu yiri maad taqaanay horay may man ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyay inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento ka baryadiisa intoon daayiman adiga ku imaada buu ka yiri ida saalta fas'alillah kaasaan baryi buu meel kale ma baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu anigu albaabka khaaliqan garaaca bas xiriirka ilaahay inaka inaga dhaxeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xiriirka inaga dhaxeeya inaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jirkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaadii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan quraankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan